xisbiga mucaaradka ee UCID ayaa maanta xilkii iyo xubinimadii xisbigaba ka xayuubiyay xogayihii arrimaha gudaha ee xisbiga Maxamuud Cali Salmaan Ramaax kadib markii uu ka soo horjeestay isbahaysiga xisbiyada mucaaradka oo ay ku doonayaan in ay kula wareegaan shirgudoonka aqalka golaha wakiilada Soomaaliland. Maxamuud Cali Muuse oo ku magac dheer Jiir oo ay barbar taagan yihiin mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga ayaa ku dhawaaqay go'aanka xisbiga lagaga caydhinayo mas'uulkaasi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ساكا وبيشو تاي صدح إلى تنكي بيشي لحد شري سوي مادين جود دفلون تاي حسبجا أو تشيرين قريني قدومية حسبجا وعد إنجنير فيصل الرابع لا تشفر بدن وده هذا الضاد وح إيجوان كوجارين أريمها صوص هذا كو إن أنا وحب أنا كشرين وحيابي شلي حوجي هراء حسبجا محمود علي سليمان رماح وكشيء ورباينها قاركود ها إن حسبجا الله بوك الغيب سنة أما وسبايس جرو إن أنا وحب كشرين حسبجا ميدسيني هاي لما يستريني هاي سيدي سينا وكسي حوج بديني هذا قضب كلابات maadaama qodobka koowaad laga soo xigtay qodobka labaadna waxa la isla qaatay falanqayn wada tashi iyo dood dheer ka bacdi in xilkii laga qaado maanta oo ay tahay 23kii bishii 6 2021 xoogayii hore arrimaha gudaha Maxamuud Cali Salmaan Ramaax isla markaana la magacaabo xogayaha cusub oo noqonaya baashe Cabdi Gaboobe qoraalkiisuna imika la idin soo gudbin doono waxba uma dhimi doonaan isbahaysigii shirarkii u socday labada xisbi wada hadaladii iyo hawshii labada xisbi ku jireen la magacaabay isbahaysiga labada xisbi mucaarid وسيدي سيهانا يا هاولينا سيدو سعون دونان حسن سليمان هارون حسن قليد وركون كيبل هرقيسا